Assalaamu calaykum. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa film 2014 kaasi oo ah crime, drama, romance iyo film dhab ah oo la yiraahdo Childbeat. Filmku waxa uu ku bilaabanayaa Anna oo qolkeeda ku practice garaynaysa qalabka muusikada. Waqti xaadirkaas ayada adeerkeeda isagoo qamri cabsan ayaa qolka u soo galaya. Wuxuuna bilaabayaa in isagu uu qasbo Anna. Ayadu waxay isku dayaysaa inay iska badbaadiso isaga, waxayna harantinaysaa isaga. Balse nasiib daro, ayada adeerkeeda waxaa duraya dhalada afka leh ee miiska saaran, waxayna isaga ka galaysaa qoorta. Wax yar kadib isagu dhiigbax ayuu u dhimanayaa dilka adeerkeed awgii. Anna waa la soo xirayaa, waxaana loo soo taxaabayaa maxkamadda. Ayadu waxa ay maxkamadda kaga waramaysaa in adeerkeeda uu boobi rabay, waxayna ayadu tiri waan iska kala tuuray isaga anigoo nafsadayda difaacaya. Balse ayada hooyadeed ayaa ka soo daba hadlaysa Anna, waxayna maxkamaddu u sheegaysaa in ayada saygeeda uu ahaa nin aad u wanaagsan. Sidaa daraadeed maxkamaddu waxay Anna u diraysaa xarunta dhaqan celinta ee dhalinyarada. Frank oo ah ilaaliyaha xabsiga waxa uu isaga nafsad ahaantiisu isbarayaa dadka cusub. Warbixino yar kadib Anna waa la kaxaynayaa halka ayadu ay la kulmayso Jeannie. Jeannie ma jecla hadallada badan, ayadu keli ayay ahayd, balse hadda ayadu waxa ay fiirinaysaa oo ay ku fakaraysaa in Anna ayadu ay saaxiib la noqoto. Maalinta xigta dhammaan dadkii xirnaa waxaa loo soo kaxaynayaa banaanka si hawo fresh ah ay u helaan. Halka Anna waxa ay kula kulmaysaa Cody, taasoo uga digaysa dhammaan dhibaatooyinka ayada soo wajihi doona haddii ayadu ay keli ahaato. Sidaa daraadeed ayadu waxay Anna u soo bandhigaysaa in ayada gruubkeeda ay ku soo biirto, laakiin Anna ayadu waxa ay doonaysaa inay keligeed ahaato, waxayna diidaysaa ayada qorshaheeda. Cody mar kale waxay la hadlaysaa Anna si ayada ay uga dhaadhiciso in ayaga gruubkooda ay ku soo biirto si ay saaxiibo u noqdaan ayna iskula jiraan. Balse waqtigan ayadu waxay soo kaxaysatay dhammaan gaangiistaradii si ay u cabsi geliyaan Anna. Balse Anna wali waa ay diidaysaa inay ku soo biirto ayaga, wayna ka dhaqaaqaysaa markii ay caysay. Cody ayada iyo gaangiistaradeeda waxay Anna u soo wadayaan qolka, waxayna bilaabayaan in ay jirdilaan ayada. Markii Anna ay dhaawacantay ayada waxaa loo kaxaynayaa dhakhtarada si loo daaweeyo. Dhakhtaradu waxay kula talinaysaa in ayadu ay la kulanto Frank, kaasoo ayada ku caawin kara in ay keli ahaato. Sidaa daraadeed Anna oo aan wax dembi ah lahayn waxay aadaysaa Frank, waxayna ayadu u sheegaysaa in isagu ay ka doonayso in xabsiga ay keli ku ahaato. Balse Frank waxayuu ka doonayaa ayada, wuxuuna ku oranayaa si nabad leh ku laabo. Anna xitaa ma doonayso waxa uu isaga u soo bandhigayo, waxayna u soo laabanaysaa qolkeeda. Anna waxa ay ka hadlaysaa xaqiiqada, waxayna ayadu Jeannie u sheegaysaa in qof waliba oo xabsiga jooga uu ayada damcayo. Jeannie waxay isku dayaysaa in ay dejiso ayada, waxayna ku ammaanaysaa ayada quruxdeeda. Maalinta xigta sida Anna iyo Jeannie ay u wada socdaan, Kila waxay istaajinaysaa Anna, wayna u hanjabaysaa ayada. Anna waxay ka caroonaysaa arrintan, waxayna go'aansanaysaa inay ku biirto gaangiistarada Cody. Si kastaba ha ahaatee, Cody ayadu waxay doonaysaa inay ogaato nafsad ahaanteeda in Anna ayadu ay ku wanaagsan tahay gaangiistarnimada iyo in kale. Sidaa daraadeed ayadu waxay Anna ku amraysaa inay garaacdo Kila. Anna way ogolaanaysaa, waxay si toos ah u soo abbaaraysaa Kila, waxayna bilaabaysaa in ayadu ay garaacdo. Cody waxa ay duubaysaa dagaalka ayadoo kaamirada qarsanayso. Frank waxa uu ciqaabayaa Anna isagoo ku soo xiraya qol aad u kuleel badan ilaa 47 saac. Frank waxa uu hanjabayaa Anna haddii ayadu aysan ka aqbalin waxa uu u baahan yahay. Isagu waxa uu ayada u diri doonaa qolka kuleelka badan ayadoo ku jiri doonta hal bil. Waa haddii ay diido ayada, doorasho kale uma banaana. Anna waxay aqbalaysaa dalabka Frank. Markii Anna ay soo dhamayso tijaabooyinkii Cody, ayadu waxay ka mid noqonaysaa gaangiistarada Cody. Xaflad soo dhaweyn ahaan Cody waxay Anna siinaysaa daroogooyin, xitaa Cody waxay ka maseeraysaa Anna quruxdeeda. Maalinta xigta Anna hooyadeed ayaa imaanaysa si ay u soo booqato Anna. Ayadu weli waxay Anna ku eedeynaysaa dhimashada Anna adeerkeed, mana ka ogolaanayso in isagu uu weligii damcay Anna. Anna ayadoo la daldalmaysa gaangiistaradeeda cusub, Kila ayaa ayada soo weeraraysa, balse waqtigan Anna way ku soo jeesanaysaa, waxayna ayadu si xun u garaacaysaa Kila. Frank waxa uu yeerayaa Anna, wuxuuna ku aflagaadaynayaa muuqaalada dagaalka ay gashay inay saameynayaan ayada, ayna ku sii kordhayaan xukunkeeda jeelka. Kadib waxa uu Anna siinayaa daroogooyin, waxa uuna bilaabayaa inuu farxumeeyo ayada. Anna waa ay ku wareertay wax waliba, waxayna si xanaaq leh u dharbaaxaysaa Jeannie. Intii lagu guda jiro baaritaanka mid ka mid ah waardiyihii waxa uu ogaanayaa Jeannie faruurteeda in uu yara jeexan yahay. Sidaa daraadeed isagu waxa uu Anna u soo kaxaynayaa Frank, balse waqtigan isagu waa uu iska daynayaa. Anna waxay ku oranaysaa waxaad rabtid iga samayso, isaguna waa uu ka diidayaa. Anna waxay soo galaysaa
xabsiga Cody, waxayna ayadu ka dalbanaysaa daroogooyin badan. Cody waxay arkaysaa in ayada daroogooyinka uu saameeyay, balse Anna waxay qaati ka taagan tahay wax waliba. Waxayna go'aansanaysaa inay ka dhex baxdo gaangistarada Cody. Goortii ay banaanka u soo baxday Anna, waxay arkaysaa gabdho qaadanaya daroogooyinka. Anna ayaga ay ku soo biiraysaa, waxayna isku duraysaa daroogada ayadoo gacanta ka qaadanaysa. Cody waxay arkaysaa arintan, wayna ka xumaanaysaa Anna. Sidaa daraadeed ayadu waxay ka hor imaanaysaa Anna, waxayna ayadu u sheegaysaa inay iska joojiso isticmaalka badan ee daroogada. Balse Anna mar kale waxa ay doonaysaa inay keli ahaato. Sidaa daraadeed Cody waxay ayadu ka saaraysaa gruubkeeda. Hadda Anna waa keligeed, keligeed ayadoo gaangistaradeeda la socota. Anna waa ay khasaartay, waxayna ayadu nafsad ahaanteeda isku duraysaa daroogooyin fara badan. Ayadu waxa ay bilaabaysaa inay daroogooyinka u qaadato si maalinla ah. Inta lagu jiro qaybta sare ee dhismaha, Anna waxa ay soo weeraraysaa Kila oo keligeed ah. Sidaa daraadeed Frank mar kale waxa uu ayada ku soo xirayaa qolkii kuleelka badnaa. Anna hadda si gabi ahaanba waxa ay la qabsatay daroogooyinka, waxayna qaadataa xaddi aad u fara badan. Balse Cody waxay weli ka taxadiraysaa Anna, waxayna isku dayaysaa in ayadu ay ka joojiso. Anna waxay ku hanjabaysaa inay nafsadeeda dili doonto haddii aan la sii dayn. Balse waardiyaha ayaa isla waqtiga ka qabanaya ayada, waxaana ayada lagu celinayaa qolkii kuleelka badnaa. Maalmahaas ayadoo darooga la'aan ah, Anna waxa ay weynaysaa maskaxdeeda. Ayada waxay isticmaalaysaa caag jaban si ayada curcurkeeda ay isaga jarto. Balse waardiyihii ayaa isla waqtiga badbaadinaya ayada, wuxuuna isagu u dirayaa dhakhtarka. Halka ayadu waxay ku arkaysaa bukaano fara badan oo sideeda oo kale ah, waxayna ayagu waayeen maskaxdooda isticmaalka daroogooyinka awgii. Mid ka mid ah bukaanada xitaa waxa ay weysay nolosheeda. Anna waxay xaqiiqsatay qaladaadkii ay ayadu samaysay, waxayna dalbatay inay aragto hooyadeed. Anna hooyadeedu ugu dambeyntii waa ay ka xumaanaysaa ayada gabadheeda oo ay xabsiga u dirtay, inkastoo ay ogaatay dhammaan wixii runta ahaa. Sidaa daraadeed ayada waxay balan ku qaadaysaa in ayadu sida ugu dhaqsiyaha badan ay xabsiga uga soo saari doonto. Kadib markii ayadu ay si dhammaystiran u soo bogsatay, Anna waxa ay nafsad ahaanteeda u soo bandhigaysaa Frank xaaladeeda si ayada ay qof waliba uga fogaato. Frank waxa uu doonayaa in Anna uu ka qayb geliyo bandhiga taalantiyada, isagu xitaa waxa uu ayada siinayaa qalabkeeda musikada, wuxuuna ayada u sheegayaa inay practice garayso. Markii Cody ay ogaatay arintan wax ku saabsan, ayadu waxay qalaysaa Anna wajigeeda, waxayna ayadu gaangistaradeeda ku amraysaa inay si xun u garaacaan ayada. Anna waxay go'aansanaysaa in dhakhtaradu ay u sheegto wax waliba, balse nasiib xumo, Frank waxa uu wax walba ka daawanayaa mid ka mid ah kaamirooyinka, waxayna ayadu dilaysaa mid ka mid ah xabsiilayaasha. Bandhiga taalantiyada Anna waxay wacdaro ugu dhigtay qof waliba xirfadeeda musikada. Kadib bandhigu markii uu dhamaaday, Frank waxa uu Anna u sheegayaa in isagu uu arintan u qorsheeyay ayada, badalkeeduna waa inay ka qaadato ayada. Markii Anna ay Ginny u sheegtay warbixinta, ayadu waxay uga digaysaa Anna inaysan aad u farxin. Sidaa daraadeed Anna waxay go'aansanaysaa inay ceewayso Frank. Ayadu waxa ay Cody ka dalbanaysaa kaamiradeeda si ay u soo duubto dhaqan xumada Frank uu kula kacayo ayada. Anna waxay u soo baxaysaa in ay la kulanto Frank. Anna waa ay ku guuleysanaysaa duubitaanka. Intii lagu guda jiro ka sii deynta xukunka maxkamadda, Anna waxay wacdaro qof waliba uga dhigaysaa ayada jawaabaheeda. Balse Frank ayada ayuu khiyaanaya, wuxuuna xubnihii weydiinayaa in ayagu ay ka diidaan ka sii deynta xabsiga. Anna si kastaba ha ahaatee way u soo dhabar adeegtay qorshahan, waxayna qof waliba tusaysaa fiidiyowgii. Frank waa uu soo ordaya, wuxuuna isku dayayaa inuu dileed gareeyo fiidiyowga, balse isagu mar hore ayuu ka soo daahay, waxaana xiraya isaga xafiisayaha booliiska. Kadib cadaymihii falka maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa inay sii daayaan Anna. Anna ayadu hadda waa xur, waxayna macsalaameynaysaa Ginny iyo Cody. Dhibaatooyin fara badan kadib, Anna waxay fursad u heshay inay ka dhawayso riyadeeda. Ugu dambeyn, like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga. Mahadsanid.